السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan nagala socotaan waa Ibdaac Show. Maalin wanaagsan dhamaantiin meel walba naga daawanaysaan. Halkaan waxaan ugu soo gudbinayaa mowduuc yar oo kooban oo ugu macdaray aqliyada ayda. Maxaan ugu bixinaa mowduuca magacaas? Ha iga degdegin wax yar isug. Sheeko yaran kaaga sheekeeyo. Waxaa jirta hadda ka hor nin baabuur lahaa oo xaafadiisa u joogay. Xaafadda waxa uu ilaalin jiray ay baabuurkii waa laga xaday maalin maalmaha ka mid ah. Wuu orday booliska u tagay. ninkii booliska ha ama ninkii baarayay kiiska wuxuu arkay ay meesha ku xiran xageed ka keentay wuu weydiiyay wuxuu yiri waxaan ka soo iibsaday mid beerley halkaas iige waxa loogu tagay baabuurkii uu haysto ninkii beerleyda kadib halkaas waxa ka dhalatay mahmaha caam af carabiga dhexdiisa oo leeyahay لا تستخدم المستخدم لأنه خادم للمخدوم الأول oo macnaheedu yahay hadirsanin qofka la soo dirsaday waayo wuxuu u shaqeynayaa kii hore soo dirsaday maanta waa 18 bisha May ma dhahayno maalinta Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale 15 bisha May ayna soo martay ma dhahayno maalinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma dhahayno maalinta SYL ma dhahayno maalintii gobonimada ma dhahayno waxa soo dhan waa musdalaxyo ama kalimooyin kamida raadadka uu naga tagay isticmaalku caalamkan ku nool Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya baa iskale ma jiro qof xoreysiiyay qof fasaxay ma jiro dabcan way jirtaa qof intuu ku soo duulay inuu ka awood bato wadankiisa wuxuu ku qabsado waa la arkaa laakiin ma jirto qof xoreysiiyay xorriyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa bixiyay ummadan waxay dhasheen iyagoo axraar ah qoorkii hooyadu waxay ka soo bixeen iyagoo xor ma jirto maalin xornimo uu siiyay Mareykan xornimo uu siiyay Ingiriis Talyaani waxyaalahaas wax la mid ah maalin ay xornimo siiyeen ma jirto xornimadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa siiyay dadkan meesha adduunka ay kaga dhaqmeen ayayna xornimadan ku joogi jireen sidii ugu joogan khadimiinta u shaqeeya isticmaalka raadkiisana faafiya waxay maalin kasta ku soo celceliyaan maalinta qaran maalinta xorriyadda maalinta aan madax banaanida helay maalinta aan dal hebel ka goonay maalintii uu hebel madax banaanida la siiyay يعني وكلمة إن أنك درينسين يسدل إن تصون ولا جرتي إن لو لها إن ير أو حرية الوسيء إن لو ما ملج جري كلمة وكلمة كدرينسين أيه ويكون وحي أشقيان ضدك وحن كسر العلن يمالين كستو وحي أشقيان ضدك أي أشقيان جرينا سو تبرتي أي مالين كستو أشقيان صادرت بيرهات كود مالين كستو فافنيان صورتي ما أنت إلا حالي أن بارك السوشيال ميديا وحي هين جارهن كو يقول نحن تبضنا wiilal iyo gabdho yar yar oo wax weyn fahansanayn mariyo lagu qoray tawxiidka la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah dhulka intay dhigeen ku tumanaya kuwa kalena hawganaya dabcan mariyahan waa calan la leeyahay aanu haysano wax micnaa oo leeyihiin malaha wax dalnimeena ka turjumaynin wax islaamnimeena ka turjumaynin wax ummadeena ka turjumaynin midda la leeyahay waa calankii dowladda federaalka iyo midda la leeyahay Soomaaliland baa iskale waxaan wax ay ka turjumayaan oo dalnimo ay ma jiro wax madax banaanimo ka turjumayaan ma jiro wax islaamnimo ka turjumayaan ma jiro bal mariyaha qaarkood waxay ka turjumayaan isticmaalka iyo raadkiisa maradan shanta gees leh ama xidigta shanta gees leh ku taala waxay ku leeyihiin shanta gees maradan ku taala waa shanta Soomaali طبعا كلمه laftirkeeda baa eray isticmaalka uu iska leeyahay xagee ka yimaadeen shanta Soomaali Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa abuuray ودل اسكو ودا فران دل كلا ودحينين اسكو دد دغيين اسكو لوقدا اسكو دينا اسكو افا اسكو ودا فران بد كلا خيدين wax kala xidha jirin isku wada dala yaa shan ka dhiga shanta lagu sheegay waraad kamid ah raadadkii isticmaalka ee markasta raba aqliyada dadka in lagu mashquuliyo la rabo weeyaan ma aha wax jirta shantan Soomaaliya lagu sheegay waa raadadkii isticmaalka kamid ah oo in la rabo dadka in lagu reebo wali maskaxdooda midaan kalena wax ay dhaantaay ma jiro waxa ku qoran tawxiidka la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah oo loogu qorin wax macna iyo wax ujeeda kaliya in la yiraahdo calan gaar aan sameeysanay dawlad gaar aan nahay gaalada la iskaga gabo intaas kaliya loogu qoray wax macno kale ka sameeysan jirin la tawxiid baan loogu hoggaansamaynin wala ummadda rabitaankeedna loogu hoggaansamaynin wala diin baan lagu ilaalinaynin la dal baan lagu ilaalinaynin kaliya waa wax bila macna meesha la iskaga qortay tawxiidka haddana wiilal iyo gabdho yar yar wax weyn fahansaneen intay dhulka dhigteen ayay ku tumanayaan ma oga waxa ka soo gaari kara intuu leeyahay
waxay iska dhigayaan markay isaan leeyihiin inay wadan Soomaaliya u heliyeen inay dad Soomaaliyeed u heliyeen inay dalnimo u heliyeen qaranimo u heliyeen wax micnuuna inay soo kordhiyeen bay isleeyihiin laakiin hawshu saas waa ka duwan tahay waxa cadeyn kugu filan maradan inayna wax ka turjumaysa jirin meesha maradan laga taagay waa Hargeysana waxa ku yaala kaniisadihii u lahaa isticmaalku iyo amnika dib loo soo farfaaraa saas darteed tawxiidkan meesha ugu qoran qoladan waqooyi wax macna oo ugu fadhiyo la leeyahay aad ay iskaga yariyay waxaana taas cadeyn kugu filan kaniisadihii isticmaalka inay amnikan Hargeysa ku yaalaan ninkii Cabdimalik Mas'uul doonaha ay ka hadlay baadariyadii Kiristaankayd inuu 10 bilood bila maxkamad ku jiro jeel ayna jirin xataa inay maxkamad la geeyay oo lagu qancay maxkamadii xitaa maxkamadii la geeyay ee ku xukuntay dambi la'aan inuu yahay inaanan loo hoggaansamin oo iska xidhan yahay طبعا واحد dawladnimo jirin wax nidaam oo islaameed ban jirin wax nidaamka ay dejisteen nidaamka gaaladaha ku dhaqanaho nacfilan jirin dimuqraadiyad baa la sheeganaya dal madax banaan baa la sheeganaya dastuur baa u yaalay leeyihiin maxkamad baa xukun riday waxay xukuntay inuu dambi la'aan yahay adana dib iskaga sii xidhay intaas oo bilood iyadoo wax dambi lagu hayaa in jirin kaliya maxaa uga hadashay qoftaan aan anagu meesha keensanay gaalada mabda'ooda filis wax kale oo macnaheedu ma jirto موضوعا وحسيفها فاسن وجه الله ولالك اسكال كنالك وجاشو عمر إنشار الله يحفظه صفة فاسن موضوعا بوجه الله وأنت كيلك تاكن الكيس السلام عليكم ورحمة الله